bismillahi raxmaan raxiim daawadayaal mar kale kusoo dhowaada koorsadeeni barashada Windows 10 maanta waxaan ka hadlaynaa amaba casharkeena uu yahay sida partition loo sameeyo. ugu horeyn partition maxaa la dhahaa, muxuu faa'iido leeyahay? Partition waxaa la dhahaa in aad kala qaybsato maskaxdaada ama storage-ka computerkaaga ama hard disk-kaaga. Okay, badanaa computerka marka Windows lagu shubo kaliya wuxuu leeyahay sidana waa meesha uu ku jiro Windows-kaaga. ani hadda hal partition oo kala ii sameeysan, waxaan rabaa partition kale inaan sameeyo. waxaa arkaysaa dad hal partition kaliya uu sameeysan yahay, waana muhiim in partitionadaadu yani inuu partition kale ku sameeysan yahay. Okay, ugu horeyn marka partition kale abuureeno sida halkan horta kaaga muuqata, partitionka waa 318 GB, waxa inoo banaan 258. partitionkana waa 146 GB, waxaana inoo banaan 39 GB. sida guudna hadiskaheena waa 500 oo GB. marka ugu horeyn waxaa imaan doontaa halkan this PC ay waxa ku dhihi doontaa right click marka dhahdo waxaa imaan doontaa halkan ay ku qoran tahay manage. Manage marka imaato waxaa imaan doontaa halkan ay ku qoran tahay disk management. Okay, sida ku muuqata waxaa noo soo baxay labadeeni partition, C oo 146 GB ah iyo D ama save data igu qoran tahay aniga oo 318 GB ah. Okay, kan ayaa wax ka jari doona. haddii C-ga uu ku badan yahay xataa wax waa ka jari kartaa. ma ahan in C-da aan waxba laga jari karin, laakiin C-da waa ka jari kartaa, balse hadda ani waxaan rabaa in aan kan ka jaro. Right click ayaa ku dhihi doontaa, kadibna waxaad dooran doontaa shrink volume. wax yar ayaa sugaysaa, kadib halkan ayaa ku soo bixi doonta. meeshan uu highlight-ka ku soo saaray qaacida ayaan ku siinayaa. marka 1024 MB as MB u dooranaysaa, GB ahaan uma dooranaysid. marka halkan ku qoraysid waxaa 1024 ku dhufa doontaa inta GB aa u baahan tahay in aad jarto. tusaale waxaan rabaa qaybtan oo D-da ah in aan ka jaro 80 GB. 1024 ayaa waxaan ku dhufa doonaa 80. Okay, calculator-ka inoo soo kici. Calculator inoo soo kici. waxaan samayn doonaa 1024 ayaa waxaa ku dhufan doonaa 80, maadaama aan rabo 80 GB inaan ka jaro. sidan ayaa ii soo baxday. Okay, ama caadi iigu qorba meesha. sidaas ayaa ii soo baxay 81920. waxaa imaan doonaa partitionkeeni, waxaana ku qori doonaa tiradii ii soo baxday oo ah 81920. 81920. Okay, shrink ayaa dhihi doonaa. Okay, halkan waxaa inooga soo baxay 80 GB oo unlocated ah, calaamadda madow markuu ku soo saaro. kadib waxaa dhihi doonaa right click, new symbol volume, kadib next ayaan dhihi doonaa, kadibna next ayuu qaatay, kadib waxaa dhihi doonaa next, kadib magac ayaan ula bixi doonaa. keeni hore waxaan ugu qornaa save data, balse kan waxaa ku qoran doonaa Ahmed. Okay, next ayaan dhihi doonaa marka. Okay, kadib finish ayaan dhihi doonaa. halkan wuxuu isku bedelay blue. marka waa kana marka axmbaasha ayaa igu soo qormay, waa kana waa igu soo darsamay kiiga. waa soo eegi doonaa marka, waa kana waxaa noo abuurmay partition cusub ayaa noo abuurmay. waa kana sida kuu muuqata, partitionkeeni horena waa kana. Okay, partitionka cusub ee aan abuuray marka ma delete garayn karaa? yes, waa delete garayn karaa, maadaama hadda aysan waxba noogu jirin wax xog ah. waxaa isla fiirin doonaa marka sida loo delete gareeyo partitionka. ugu horeyn naga soo xirxir wixii hore oo dhan. sida partitionka loo delete gareeyo isla fiirin doonaa marka. sidii si lamid ah waxaa imaan doontaa right click ayaa halkan dhihi doontaa, kadibna waxaa imaan doontaa manage. kadib waxaa imaan doontaa halkan ay ku qoran tahay disk management.
waxaan rabaa inaan delete gareeyo partitionkeeni kadib waxaan dhihi doonaa right click kadib waxaan dhihi doonaa delete volume markaan taabto delete volume wuxuu dhihi doonaa deleting this volume erase all data on it yani waxaa bixi doona dhammaan xogta ku jirta volume-kan balse hadda xog inoogu ma jirto oo hadda dhow ayaan abuurnay okay yes ayaan dhihi doonaa kadib markaa yes dhaho sidii hore si lamid ah unlocated ayuu idhahay marka 80 GB halkee aadayaan 80 GB ee aan halkan yani kusoo samaysanay partitionkan halkee aadayaan ma intaa rabtaa inaad ku darsato ma keenii hore aan ka soo saarnay marka waxaan sameynaynaa keenii hore ayaan ku darsanaynaa kadib waxaan taabanaynaa right click kadibna waxaan dhahaynaa extend volume yani balaari inoogu dar inta GB aan haysano kadib next ayaan dhahaynaa waa kana kadib next ayaan leenahay kadibna finish sida kuu muuqata save data wuxuu ku soo laabtay 318 GB waxaan rajeynayaa in aad loo fahmay haddii aan dib ugu laabto oo soo fiiriyo in partitionkii uu naga baxayna waa kana sidii hore ayuu ku soo laabtay balse aniga waa u baahanahay mar kale ayaan create garaysanayaa balse waxaan rajeynayaa in aad loo fahmay sida partition cusub loogu soo kordhiyo storage-ka computerkaaga sidii hore si lamid ah sidoo kale waxaan isla fiiri doonaa horta iisoo jar shrink ide shrinka markaan dhaho tiradii data meeqa ay ahayd intee data un baa u baahanahay 81,920 waa 80 GB 80kaas GB ayaan ka jaran doonaa shrink ide kana unlocated ayuu dhahay kadib waxaa dhihi doonaa new symbol volume kadib next ayaan dhihi doonaa kadib next sidoo kale next kadib magac ayaan ula bixi doonaa Ahmed Bashi sidoo kale waa isla fiiri doonaa sida magaca looga bedelo finish ide kana marka waa uu kusoo biiraya waxir kadib kana waa uu inoogu soo biiray kadib waxaan isla fiiri doonaa sida magaca looga bedelo volume hore kugu samaysnaa tusaale kan oo kale magac markaa ka bedelayso right click ayaa dhihi doontaa rename ayaa dhihi doontaa kan oo kale markaa magac ka bedelayso right click ayaa dhihi doontaa rename ayaa dhihi doontaa sida kuu muuqato Ahmed Bashi waxaa ka dhigaynaa keliya Bashi sidaas ayaa magaca looga bedelaa waa kana وكادي Bashi sorry kusoo laabanaya cancel leh qadayo galay kadib waxaa dhihi doonaa rename markaa dhaho magaca ayaan ka bedeli doonaa Bashi kadibna saas ayaa dhihi doonaa meel banaan ayaa klik ku leedahay kadib continue ayaa leedahay Bashi ayuu isku bedelay sidoo kale kan waa ka bedeli kartaa kan sidaas si lamid ah uga bedeli kartaa waa rajeynayaa in casharkan aad loo fahmay maanta kadibna aad ku dhibtoon doonin sida aad partition ama u kala qaybin lahayd storage-ka computerkaaga waa ku mahadsan tahay daawashada casharkan inta ku kulmi doono casharka xiga sidaas iyo nabadgelyo